inaanu ka hadalno arrinta saldhigga dowladdu ay leedahay waanu bixinaynaa saldhigga berbera ee ciidamada ajaanibka la siinayo. runtii annagu xisbi ahaan waxaanu si cad u sheegaynaa somalilan waxay saldhig bixin kartaa markay ictiraafisho. hadda waxaanu nahay dal aan ictiraafaysan, dal birito wixii la doono lagu samayn karaynu nahay. dowladda ay sheegayaan ay leeyihiinna waa dowladda iyadaba la ilaaliyo oo imaaraadkaoo kale waxay somalilan kusoo kordhinayso nooma muuqato. waxaanu diidanahay mandaqadda inaan u horseedno in dhibaato iyo dagaalo somalilan loogu soo marmarsoodo oo halkaa laga soo galo ma ogolin. waxaa mandaqad runtii geeska afrika iminka nabadgelyo ku nool, etoobiya, jabuuti, soomaaliya, inta waxaanu leenahay xuduud. waxaanu jecelahay nabad ku wada noolaalno, wixii dhibayaana una dhibayaa. taasi waa mid. ta kale ma arkayno wax somalilan u dana oo ay wadaan oo ay xukuumaddu keentay haba yaraatay ma jirto ugu yar tahay ictiraafku. berbere saldhiggeega waxaa lagu bixi karaa waxa ugu yar oo ictiraaf somalilan ay ku hesho. maxamed cabdilaahi orcaddi xogayaa guud baa tahay ee xisbiga mucaaridka ee wadani. ma laga yaabaa arrintan maadaama doorashadii ay soo dhowdahay inkastoo la kordhinayo muddo gaaban baa la kordhinayaa oo maaris ay dib uga dhacayso abaaraha jiraha awgeed inaad ku ololeynaysaan? runtii horta inay dowladdu gashaba maaha. muddada iminka ku jirtaa waa muddo kordhin. muddadii la doortay horey u dhammaatay, waa muddo kordhin karoo loo sameeyey. haddana wakhtigii doorashadaaba la galay. waxaan u aragnaa annagu olole kama hadlayno iyo iyo doorasho kama hadlayno. waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye mustaqbal iyo danta ummadda. danta ummaddaanay ku jirin dowlad kastoo timaada, ama wadani ha yimaado, ama kulmiye ha joogo, ama wicid ha timaadee wax ictiraaf ka yar in berbere loola yimaado oo laydhaa saldhig baanu ku bixinaynaa. taanu qabnaa markaad eegto saldhiggan militariga laleeyahay imaaraadka ee baryahanba socday, wasiirka duulista hawada markaanu ka waraysanay isagoo wuxuu sheegay in weydiisi afka ahun mar ay booqasho ku tageen madaxweynaha iyo wafdiga hogaaminaya ay weydiisteen, laakiin wax kale inta aanay dhaafsiisanayn. marka maxaa idinku kalifay aad ka hadashaan? runtii wasiirka duulista ka hadlay, wasiirka arrimaha dibadda ka hadlay, waxaa ka hadlay wasiirka qorshaynta. dowladoo dhamme arrinta way ka hadashay. arrin annagu aanu suuqa ka soo maqalay maaha. arrin ayagu ummadda ay u sheegeen iyagoo aanu sheegin oon sababaynin oo waxaa ku kalifay aanu sheegin iyo danta somalilan ugu jirta. taanu ka hadlaynaa waxa weeye hadday ictiraaf somalilan oo hayaan oy saldhiggaa berbera ku bixinayaan welcome baanu leenahay. wax ka yar oo somalilan ay ku aqbali kartaa saldhiggaa ma jiro. waana halbowle, waa meesha keliya ay somalilan eegato meel qalqalin lagu bixiyo way ka weyntahay meeshaas. intii saxaafadda la isu marin lahaa hadal oo dad kaloo magac lehna way ka hadleen. maxamed xaashi cilmi ayaa ka hadlay, wasiirka hore maaliyadda asaasayaasha SNM ahaa, ibraahim dhigaweyna ka hadlay, waxaa ka hadlay hogaamiyihiina xirsi cali xaaji xasan, fadal baa ka hadlay, aqoon-yahan fadal xisbigiina wadani ka tirsan, madaxweyne hogaankii hore axmed yuusuf yaasiin baa ka hadlay arrintan saldhigga. intaa isu tagtaanoo dabadeetana talama u gudbisaan qoraala intay saxaafadda isku dhaafsan lahaydeen dowladda ama xukuumadda? runtii markaanu helno hadda af bay ku sheegeen aan caddayn oo ay muhmalgeliyeen wasiiradii hadlay. marka wax cad ay ummadda u keenaan xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay af iyo qoraalba inuu ku qoro, una tabiyo wixii ra'yigiisa oo ata aanu dii sheegin iminka oo aynaan saldhiggaas wax ka yar ictiraaf aanu goynin. inaanu ka hadalno arrinta saldhigga